بسم الله kusoo dhawaada janalka waanaga Zahir Maxamed maanta waxaan qaadan doonaa cashirkeena sideedaad ee maadada macroeconomic maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno waxyaala la xiriira lacagta iyo sida u shaqeyso iyo imise u kala baxdaa marka chapterskan uu socon doonaa linkii labaad uu leeyahay marka qaybtan hore waxaan rabnaa badanaa ku qaadano qeexida iyo macnaha caadiga sida u shaqeyso iyo qaybood uu yahay maniga marka waxaa jira xogtooda hore waxaa qaadanayna maxaa mani la dhahaa lacag maxaa la dhahaa lacagta badanaa waa wax keed ah oo hanti keed ah kaasoo badanaa loo isticmaalo sida wax laisku dhaafsado in wax lagu kala dhaafsado wax lagu kala gato wax transaction caadi lagu sameeyo okay marka money factionka shaqooyinka qabato waxaa kamid ah markii lacagaa la fiiriyo lacagaa saddex shaqo badanaa qabataa shaqada koowaad waxaa waa in waxaan store of value ku yahay waxaan inuu keed ku yahay qeyd qiimeyn tusaale ahaan kale lacagtan inay meel ku taali karto ilaa adoo from markaad beer bilowda tusaale ahaan kale awood wax ku gadanayso oo kale purchasing powerka markaad iibsanayso lacagtaas oo kale waxaa laga yaabaa in aad lacag aad 2 sano ama 3 sano aad keed dhigatay in aad 3 sano 4 sano 5 sano 6 sano aad isticmaalayso marka lacagta waxay ku noqonay keed waaye macnaheedu laakiin shay hadaa geliso waxaa laga yaabaa shayga inuu depreciation kaaga dhaco waxaa laga yaabaa in oo ka halaabo ama wax ka gaaraan marabo laakiin lacagta waa keed waaye oo inkastoo lacagta ay leedahay iyadoo nafta janji value oo dhacayo xagga exchange rate as a time waqtiga depreciation jiro laakiinse waxa wax baa ku iibsan kartaa oo store nu galaa dadka bankiska bay dhigtaa marka waa store nu noqonaa marka shaqooyinka kale ee qabato waxaa kamid ah inay tahay unit of account waxaa waaye inaad shayga aad rabto value pricekiisa in shayga lagu cabiro tusaalaha oo kale in lagu dhaho mobilkan wuxuu joogaa kale inta soo joogaa 20 30 oo joogaa 100 oo joogaa in lagu dhaho macnaha waa unit wax lagu cabiro waaye maxaa yeelay every product wuxuu leeyahay price uu leeyahay ama money lagu gato uu leeyahay marka price ko measure gareeyaa marka iyo value waxaan qiimaha waa lagu jaangooyaa price iyo qiimaha iyo lacagtiisa iyo wixiisa lagu jaangooyaa lacagta marka waxyaalaha qaar ay qabato waxaa kamid ah in oo unit of account ah oo wax lagu cabiro ay tahay shaqada saddexaad ay qabato waxaa waa medium of exchange in aan wax ku kala gadano tusaalaha ku lacag wadataa lacagta waxaa ku iibsanaysaa waxaa lacagta bixinaysaa shay kale lagu siinaa lacagta ka bixisid shay kale helaysaa ama qofka shay ku siinaa lacagta helaa marka maxaa waa waxbaa lagu gataa waa medium of exchange waxbaa lagu kala gataa okay imaano lacagta imise u kala baxdaa lacagta laba waayo waa fiat money iyo commodity money fiat money maxaa la fiat money waxaa waa lacagaha caadiga ah sida paper currency oo kale oo la rabo in badanaa wax oo badanaa lagu gato waana badanaa tan la isticmaalo waaye marka badanaa waxaa waaye lacagtaas badanaa waa badanaa value-geedu waa fadhisaa macnaha tusaalahaan lacagta waa la daawacaa macnaha sida warqad ahaan wax micno ma guunaayo laakiinse waxbaa lagu measure gareeyay oo lagu cabiray waa lagu kala wax lagu iibsado wax kale lagu kala iibsadaa laakiinse markii la dhaho community waxaa waaye waa shayda oo sida oo mataqaanaa oo qiimaha leh waxyaalaha qiimaha oo lagu jaangooyo sida dahabka oo kale dahab gold coinska waa itself waxaa qiimo leeyahay waxaa laga yaabaa qiimahaas marabo in oo marabo si noqdo mar inuu jabalaya mar isbedelo maxaa yeelay waa commodity oo u go'an waay oo intrinsic value leh labadaas ay u kala baxaan typeska badanaana waxyaalaha oo monetary policy-ga is badanaa waxaa hoos imaada central bankiga badanaa qabto waxyaalaha la xiriira money valuation-ka marka institution-ka kaliya oo regulate gareeya oo maamula waa central bankiga oo every country waddan walba marka waa intaas rabnaa baadna ku simno macnaha badan dhigeyno maxaa yeelay
casharada dambe soo socdaan waxyaala la xiriira inflationka iyo prices iyo wax walba. In case hadaad su-aal qabto please waad soo weydiin kartaa community hoostiisa. waad ku mahadsan tahay. cashar dambe insha allah.